أنا وكل هذا نعرف كشعب كيسسي خاطبه وحنو نف يمال بلقرب تاجنا هاي ولا لها يجا بتلان عيدا ماذا يدا أركتا 10 بلا عوان كاودي داعش يوحي صار عيا قاعد كسر دوش دول كيا وحوي وحنو كسر هرتشدنا سياسة دحنا قرمون حسن بسته دوري من حسن بسته وحي للسياسة وحنو للسياسة هاي وحي دنا هيا وحوي حسن بسته وعلى ويجا كوبات maalintii xabadu nagu socotay ee 9 wiil laga dhintay wuxuu 36 qof ka dhintay reer SSC waxa weeye danina nafiya maalba uu nala garab taagnaa marka isku doorsan mayno hadii uu dad qaar uu wax siiyo anagu xasan musta siyaasadiisa qaxuna qadmo waanu ka soo horjeednaa dooni mayno Puntland baanu nafiya maalba la garab taaganahay waxaanu iskugu soo banaan baxnay inaanu taageerno walaalahayaga Puntland waxaan anagu reer SSC hadaanu nahay waxaanu ku gudbanahay daacish galbeed run marka la sheegay cadawgeena waa isku mid laba cadow baynu ku kala gudbanahay kii bari baad la dagaalamaysan anaguna kii galbeed baanu la dagaalamaynaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla qalaan waxaanu leenahay wixii dhintay Allaha u naxariisto kuwa inaga dhaawacmayna Allaha boogadhayo dadku meel walba way ku dhimanayaan anagana furunta shafrumood oo daacish degan tahay daacish taqarsoon baanu ku dagaalamayna insha Allah bimilaay karin mar dhawna dhulku wuu safaysmayaa Soomaali bayuuraba ku soo hadhi doonto insha Allah bimilaay karin ajaanibtu soo dagaal tagtay ay ugu badan yihiin nimanka Suuriyaanka ee Bangladesh-ka waxaan leeyahay waxa idin Falastiin baa idin ka baahan inaad maaragtay aad xoreysaan laakiin dhulka muslimiintu ma aha inaad ku dhimataan muslim khaalis ma tiidin ilaahay baan sharkiina ka magan gal wax kalaano idin niraahna ma garanayno waan salaamayaa dhammaan bulshaweynta harti waxa meel kasta joogtaanba waxaan leeyahay garabkiinaanu nahay ilaahay cadawga haynaga qabto isku duubni iyo wada jir labada furimoodna ee galbeed iyo barina Allah inoo sakhiro insha Allah inta dhimatay xaq bay ku dhimatay inta dhaawacuna xaq bay ku dhaawacantay waa shahiid intii dhimatay nafiya maalba waa idin la kortaaganahay hadaanu nahay gabdhii reer SSC gool iyo gabanimo Puntland gool waxa loo baahan yahay in fadhiga laga kaco argagixisada caalamiga ee ku soo duushay dalkeena iyo dadkeena ee la diin baanu faafinaa wax diin oo ay faafinayaan ma jiraan waa waxa weeye dalka lagu soo duulay dahabadeena iyo macdanteena iyo calafkeena ayaa la doonayaa in la curyaamiyo waxa loo baahan yahay qof kasta oo qaangaar ah oo aqli leh inuu fadhiga ka kaco haday maal tahay iyo haday naf tahay iyo haday ciidan tahay iyo haday cudud tahay waxa loo baahan yahay si mugle oo miisaan leh cadawga inagu soo duulay in waxa weeye la iska qabto Puntland ha guulaysato calaw ha jabo daacish ha jabto ciidanka xaquudirka ee Puntland aad iyo aad baan u salaamayaa inta dhimatana Allah u naxariisto saraakiisha iyo wixii naga dhintay Allah u naxariisto inta bugtana Allah caafiyo ee dhaawacyada ah inta hadda furmaa ku jirtana waxaan leeyahay gool baan u rajaynayaa insha Allah waxaan mahad ugu mahad celinayaa shacabka SSC reer Sool oo isugu soo baxay maanta si weyn oo mug iyo miisaan leh argada isugu yimi aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay halka hawl ka badalay wali waa hogadii cadawgeena aad buu badan yahay hadaynu hartinahay ama daarood banahay waa la inoo ballamay waxaan ku yiri dagaal baa la inagu hayaa dagaalkan laabta ka ogsoonaan reer Puntland laabta ka ogsooni shacabka SSC iyo Puntland hartiba si isugu duuban yahay waxaan leeyahay ciidamada la isgarab taago dhigaga hala shubo furmaha hala tago furmaha dhawaynu ku filanahay ilaama iyo xaggana daacish baa joogta ilaama iyo saaxmaygaag ilaama iyo shangeed ilaama iyo sanaag waxa joogta daacish labada furmaadba waynu ku filanahay guul insha Allah xaquudir weeyayna madeenu haday dhintaana waxa weeye shahiid hadii ay nool yihiin waxa weeye xaquudir waxaan aad u salaamayaa dhammaan shacabweynaha reer Puntland meel kasta joogan waxaan idin ka soo taageeranaa magaalada Laascaanood gaar ahaan caasimadda waxaan leenahay guulaysta ciidamada Puntland meel kasta joogan waxa wax lagu yahay waxay tahay hiilka iyo walaalnimada anagu wax kasta aan idin garab istaag karno insha Allah markaan nahay reer SSC ahaan waan idin garab istaagana insha Allah aad iyo aad baan u salaamayaa reer Puntland xalay guulaysta cadow baa ku soo duulay dalka aan lahayn ninkii dhoof ku yimi bay geeridu dhibaysaa waxa dalka u hadhaya ninkii dalka iskale baa u hadhaya dadkana waxaan leeyahay dhalinyaradana waxaan leeyahay haday SSC yihiin iyo haday Puntland yihiinba
intaa dhidhidaana warmaa dhufsataan caloolaha dhaansan ku dhaaba warmaa baan leeyahay meel kasta aad joogtaan hartiyow daacishna jabiya iidoorka halkan soo taagana jabiya dagaal laabta ka ogaada guryahana wada xidha qafilada ku xidha kibirkan aynu iska dayno iyo magaalooyinka aynu joogno ee fadhino dad baa inoo soo shaqo tagay aynu iska celino laangaha baa inoo soo shaqo tagay inagoo raas casayr iyo raas kambooni kala joogna maalin baynu maraynaa haddaynu guryaha baabada xidhno maalin baynu maraynaa inta iska tira leegiin oo xaggay joogeen la odhanayaaye cayayaanka aynu iska buufino hadduu buur joogo iyo hadduu bannaan joogaba ka dhalinyar ahaan waxaanu taageeraynaa ciidanka Puntland ee ku jira difaaca hore ee buuraha camiska gobolka bari waxaan leenahay ciidamada Puntland meel kasta aad joogtaan guuleysta annaguna garabkiina nahnay haddaanu nahay ka dhalinyar ahaan iyo ka dawlad ahaan maamulka SSC Khaatumo dhalinyarada iyo dawladda iyo ciidamada jiidaha hore ay jiraan waxay diyaar u yihiin heegan buuxa waxay ugu jiraan cadow kasta oo ku soo duuro dhulka in la jibiyo marka waxaan leenahay dhammaan shacabka reer Puntland yar iyo weyn madax iyo dhalinyaro iyo cuqaal iyo waxgaradba waxaan leenahay shacabka ciidamada hala garab istaago ciidamada hala taakuleeyo garab istaag ha loo muujiyo dhiirigelin ha loo muujiyo meel kasta ee cadowgu ka soo duulana waynu ka guulaysanaa haddaynu nahnay shacabka gobolada SSC Khaatumo iyo kuwa Puntland oo isgarabsanaya laba maamul weeye walaalaha hanti wadaaga marka waxa la rabaa cadowgu meel kasta uu ka soo duulo in yani gacmo wada jir waxa looga qabto meel looga soo wada jeesado Puntland gool Khaatumo gool SSC gool idinkuna guulaysta waxaanu u hambalyeeynaa ciidamada Puntland ee difaaca hore ku jira ciidamadaasaan u hambalyeeynaa waxaanu u hambalyeeynaa ciidamada SSC Khaatumo ee furimaha hore noogu jira oo aanu ku jiibsanno oo aanu ku gabaano oo aanu ku seexanno oo dhiig iyo naftaba noo huray baanu u hambalyeeynaa waxaanu leenahay deniyow deni madaxweyne waanu ku garab taaganahay reer SSC Khaatumo way ku garab taagan yihiin barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen waanu ku soo soconnaa kaamaanu tagin waa kula joognaa garabkaaga iyo gaasaankaaga aanu ku xoraynay laascaanood garabkiina iyo gaasaankaynu ku xoraynay gool xasabustadon xasanow saad Puntland ka yeeshay baa inoo dhaxa saad Puntland ka yeeshay baa inoo dhaxa xasanow saad Puntland ka yeeshay baa inoo dhaxa